kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba waad adduunka ka joogtaan subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhanka ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta. Sheekooyinka aynu soo qaadi doono intooda badan waxay u badnaan doonaan wararka la xiriira dhanka suuqa kala iibsiga xidigaha iyo halka ay wax kala marayaan. Waxyaabaha kale oo aan eegi doono waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo lasoo warinayay inay ogolaatay in dadka isku jinsiga ah ee wax iska doona ama isguursada ay markaa imaan karaan dalkeeda inta lagu guda jiro dhacdada koobka adduunka. Waxyaabaha kale oo aan eegi doono waxaa ka mid ah lambarka ay Manchester United u go'aamisay oo ay meel u dhigtay Frenkie de Jong oo aan idiin soo gudbin doono. Romelu Lukaku lambarka uu xiran doono ayaan sidoo kale soo qaadi doonaa si la mid ah lambarka loo dhiibay daaficii hore ee naadiga Juventus Giorgio Chiellini kaasoo uu u xiran doono kooxdiisa cusub ee Los Angeles Galaxy. Sheekooyinkaas ayaynu eegi doonaa daqiiqadaha soo aadan saaxiibayaal, balse intaanan bilaabin muuqaalkeena waxaan idinka dalbanaynaa in aad like inoo saartaan muuqaalkan oo aad sii gudbisaan saaxiibada markii ugu horreysana soo booqanayana waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inagu dhiirigeliya. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay wararka dhanka suuqa kala iibsiga. Mustaqbalka xidiga reer Brazil ee Rafinha ayaa la soo warinayaa in uu weji kala yeelanayo 25 sano jirkan ayaana la sheegay in naadiga Chelsea ee Ingiriisku ay heshiis kala gaartay kooxda ay England ka wada dhisan yihiin ee Leeds United. Sidoo kalena heshiiskiisa shakhsiga ah ayaa la filayay in la dhameystiro toddobaadkan, laakiin wakiilkiisa ayaa la soo warinayaa in uuba gaaray magaalada Barcelona. Waa wakiilka la yiraahdo Deco, waxaana uu wada hadallo la yeeshay kooxda reer Spain oo iyaduna si xoog leh oo dhab ah u doonaysa saxiixa ciyaaryahanka la yiraahdo Rafinha. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee wadanka Jarmalka ayaa digniin u dirtay naadiga Barcelona oo doonaysa weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski oo isaguna daneynaya inuu isaga tago naadiga Bavaria. Bayern Munich ayaana markaasi dalbanaysa 50 milyan oo euro. Sidoo kalena waxay fariimo joogto ah u dirayaan naadiga Blaugrana oo doonaysa saxiixa xidigan reer Poland. Madaxweyne sharafeedka Bayern Munich ayaana u sheegay Barcelona in aysan waqtiga iska lumin ee dadaalkeeda ay meel kale ku bixiso, go'aanka laacibkana uu yahay mid u yaala naadiga Munich maadaama ay heshiis kula jirto. Dhinaca kalena Antonio Griezmann ayaa la soo warinayaa inuu xilli ciyaareedka dambe sii joogi doono kooxda Atletico de Madrid. Tababare Diego Simeone ayay kooxdiisu markaa cusboonaysiisay heshiiskii ay kula jirtay kooxda Barcelona ee ay laacibkani amahda kaga soo qaadatay sanad ka hor. Atletico de Madrid ayaana laga doonayay in haddii ay sii haysanaysa laacibkan ay ku wargeliso Barca ka hor inta aan la gaarin dhamaadka bisha June. Haddii ay u baahan yihiin saxiixiisa oo rasmi ahna in ay wada qaataan ay bixiyaan 40 milyan oo euro. Dhinaca kalena daafaca dadabka midig ee Arsenal Hector Bellerin ayaa dib ugu soo laabtay magaalada London, waxaana uu iska xaadiriyay xerada tababarka ee kooxda Gunners. Hase yeeshee waxa uu markaa dalab ka sugayaa naadiga Real Betis oo uu markaa doonayay inuu u wareego maadaama tababaraha Arsenal Mikel Arteta uu u cadeeyay inuusan ku jirin Hector Bellerin qorshihiisa xilli ciyaareedka cusub. Dhinaca kalena weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku ayaa dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Inter Milan oo heshiis sanad amaah ah uu markaa ugu wareegay. Taageerayaasha ayuuna u gacan haatiyey, waxaana uu warbaahinta u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku soo laabto garoonka San Siro oo uu sanad ka hor kaga dhaqaaqay dhinaca Chelsea. Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Lukaku 44 kulan ayuu ka hoos ciyaaray tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel, waxaana uu ku soo bilowday safka hore 29 ka mid ah 44taasi kulan, laakiin kaliya waxa uu markaa gacan ka geystay 15 gool. Lukaku oo haatan la xaqiijiyay inuu dib ugu laabtay Inter Milan ayaa aadaya kooxdaasi oo u saftay 95 kulan, isla markaana u dhaliyay 64 gool, 16 caawinna uu u sameeyay, isla markaana uu la qaaday koobka horyaalka Serie A Talyaaniga. Weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku waxa uu kooxda Inter Milan u xiran doonaa lambarka 9aad ee kooxda Nerazzurri. Dhinaca kalena xidiga la yiraahdo Sergio Gnabry ayaa lala xiriirinayay Real Madrid iyo kooxo kale oo ka dhisan horyaalka Premier League Ingiriiska toddobaadyadii la soo dhaafay. Hase yeeshee kooxda Bayern Munich ayaa markaa iyadu doonaysa in ay qandaraaska u kordhiso laacibkan asal ahaanta ka soo jeeda Ivory Coast oo markaa heshiis sanad ah uu uga harsan yahay qandaraaskiisa haatan. Dhanka kalena tababare Pep Guardiola qalad weyn ayuu ku sameeyay inuu ogolaado in Gabriel Jesus uu markaa ka tago Manchester City xagaagan oo weliba uu u wareego koox kale oo Premier League ah. Sidaas waxaa ku doodaya halyeygii qadka dhexe ee reer Jarmal ninka la yiraahdo Dimitar Hamann.
Jesus ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda Arsenal waxaana uu ugu biirayaa 52 milyan oo euro. geesta kalena kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lasoo warinayaa inay dalabkii saddexaad ka gudbisay daafaca reer Argentine ee Lisandro Martinez oo ka tirsan kooxda Ajax, kaasoo horey ugu jiray liiska ciyaartoyda ay dooneyso kooxda Manchester United. Gunners ayaa dalabkan saddexaad oo ay u dirtay kooxda Ajax markaa dul dhigtay Martinez lacag gaaraysa 34 milyan oo ganiga sterling ah. laakiin wargeysyada qaar ayaa tilmaamaya in Manchester United ay dalab intaa ka qiimo sareeya ay ku dooneyso daafacan la yiraahdo Lisandro Martinez. xidiga qadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee la yiraahdo Dani Ceballos ayaa dareensan in fursadiisii garoonka Santiago Bernabeu ay markaa isku soo dhamaatay oo aanu heli doonin waqti uu markaa ku ciyaaro kadib markii kooxdiisu ay la soo wareegtay laacibka reer Faransa ee Orient Kouameni. dhinaca kalena Angel Di Maria ayaa heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta Juventus oo markaa uu u saxiixayay heshiis sanad ah kaasoo mushaar ahaan uu ku qaadan doono lacag gaaraysa 5.2 milyan oo euro, waxaana uu isaga tegay kooxda PSG oo muddo 7 sanadood ah uu usoo ciyaarayay. dhinaca kalena kooxda ka ciyaarta horyaalka MLS-ka Mareykanka ee Los Angeles Galaxy FC ayaa markaa xaqiijisay lambarka cusub ee uu u xiran doono xidigeeda Giorgio Chiellini ayaa isaga soo tagay kooxda kubadda cagta Juventus ee wadanka Talyaaniga, waxaana uu ka mid noqday kooxda ka xamaalata horyaalka MLS-ka Mareykanka ee LAFC. waxaana daafacan la yiraahdo Giorgio Chiellini uu kooxdiisa cusub u xiran doonaa lambarka 14aad. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lasoo warinayaa inay ku wargelisay 4 ka mid ah xidigaheeda in aan loo baahnayn oo aysan markaa kusoo laaban karin garoonka tababarka xilli kooxdu ay bilaabayso tababarka ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee dhawaan bilaaban doona. kooxda Barcelona waxaa markaa tababarka ay bilaabi doontaa Isniinta ina soo aadan oo ay taariikhdu tahay 4 bisha July, waxayna waqtigaasi ka hor doonayaan inay iska fasaxaan dhowr ciyaaryahan oo kooxda koowaad ka tirsan. sida ay warinaysa jaridda Mundo Deportivo, kooxda Barcelona ayaa 4 ciyaartoy ee kala ah Oscar Mingueza, Ricky Puig, Samuel Umtiti iyo Martin Braithwaite markaa ku wargelisay in aysan iman karin tababarka oo aan looga baahnayn inay yimaadaan garoonka, isla markaana aysan ku jirin qorshaha xilli ciyaareedkan ee naadiga Barca, taasoo ka dhigan inaysan qayb ka noqon doonin safarka ay kooxdu ku baxayso oo ay isugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub ee ina soo aadan. dhinaca kalena sida warbixinadu ay tilmaamayaan, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa meel sii dhigtay lambarka ay u qorshaysay inuu xiran doono xidiga ay aadka u dooneyso ee reer Holland ee la yiraahdo Frenkie de Jong, kaasoo ay doonayaan inay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii ay labada kooxood ka heshiiyeen lacagta iibka ciyaaryahankan. hadda kaliya waxaa harsan in Manchester United ay laacibka kala heshiiso mushaharkiisa iyo tirada sanadaha uu markaa u saxiixi doono. kubad sameeyahan 25 sano jirka ah ayaana markaa kula midoobi doona garoonka Old Trafford tababarihiisii hore ee naadiga Ajax ee Erik ten Hag. Frenkie de Jong ayaa xilli ciyaareedkii 2016-2017 waxa uu Ajax u xirtay lambarka 21aad, waana lambar uu sheegay in uu markaasi raaxo ku dareemayo markasta oo uu ku ciyaarayo kadib wareysi uu bixiyay sanadkii 2019. haddaba lambarkee ayuu Frenkie de Jong u xiran doonaa Manchester United oo ay meel u sii dhigtay oo uu cidlo ka heli doonaa? waa su'aal jawaabteeda mar horeba ay sii diyaarisay Manchester United, waxaana kubad sameeyahan uu si fudud ula wareegayaa lambarka uu jecel yahay ee 21aad oo meel cidlo ah la sii dhigay. Daniel James iyo Edinson Cavani ayaa sanadihii ugu dambeeyay lambarkan 21aad u xirnaa Manchester United, waana lambar uu raaxo ku dareemo xidiga kusoo wajahan United ee Frenkie de Jong. waxaase labaduba James iyo Cavani ay ka tageen Old Trafford iyadoo Daniel James uu xagaagii hore u wareegay naadiga Leeds United, halka Cavani uu markaasi si xor ah kaga baxay xagaagan garoonka Old Trafford. tani waxay ka dhigan tahay in Frenkie de Jong uu meel u sii yaalo lambarkiisa 21aad oo loo xiri doono maalinta lagu soo bandhigayo garoonka Old Trafford. ugu dambeyntiina dowladda Qatar ayaa la soo warinayaa inay ogolaatay in qowmuluudku ay yimaadaan dalkeeda inta lagu guda jiro dhacdada koobka adduunka ee lagu qabanayo dalkaasi, isla markaana aan wax dhibaato ah loo geysan doonin. qabanqaabiyeyaasha koobka adduunka ayaa shaaciyay in wadanka Qatar uu ogolaaday in qaniisiintu ay yimaadaan dalkaasi oo ay markaa ka qayb galaan daawashada koobka adduunka ee dhamaadka sanadkan lagu qabanayo wadankaas.
isla markaana loo ballan qaaday in aanay wax dhibaato ah la kulmi doonin. Mark Blingham oo ah agaasimaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo ay weheliyaan xubno ka socda UEFA ayaa safar ku tegay magaalada Doha ee waddanka Qatar, waxaana ujeedkoodu uu ahaa in dadka isku jinsiga ah ee isguursada loo ogolaado inay dalkaasi tagaan oo ay ka qayb galaan koobka adduunka. Qatar waxa ay qaadaysaa tallaabo kasta si ay u farxad geliso reer galbeedka, iyagoo meel iska dhigay diintooda Islaamka iyo dhaqanka Carbeed labadaba. Blingham ayaa horey u sheegay in 13 waddan ee qaaradda Yurub uga qayb galaya koobka adduunku in ay hal dhinac uga soo wada jeesan doonaan oo ay bixin doonaan calaamad ay ugu doodaan dadka isku jinsiga ah ee wax iska doona. Waxaana isaga oo fariintaasi xambaarsan uu la kulmay madaxda waddanka Qatar oo uu ku qanciyey inay ogolaadaan in dalkeeda ay yimaadaan qowmuluudka. Arrintan oo la filaya inay cara ka kicin doonto dalalka Carbeed gaar ahaan shacabka reer Qatar ayaysan dowladda dalkaasi weli ka hadal. Hase yeeshee Blingham oo la kulmay madaxda ugu sarreysa waddankaas iyo hay-adaha waddanka Qatar ee u dooda xuquuqda insaanka ayaa sheegay inay isla qaateen in la ogolaado in qaniisiintu ay yimaadaan dalkaasi oo weliba la damaanad qaada amnigooda. Waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. Waxaan ahay Haaruun Yuusuf Khasaaro. Intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.